السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan inta Soomaalinimada jecel gaar ahaan tolkay boqortooyada Daarood Ismaaciil meel kasta joogtaan aad iyo aad baan idin salaamayaa. waadna ku mahadsantihiin isgarab istaagiina hiliyo hooba aad garab taagantihiin. jazakallahu khayr waa markii loo wada dhashay waad ku mahadsantihiin. halkan waxaan kala hadlayaa caawa aan u soo fadhiistay waxaan joogaa goobtaydii ganacsi laascaano dhexdeeda meheradaydii baan dhex fadhiyaa. halkan waxaan caawa doonayaa inaan uga jawaabo abtigay Axmed Bulaale. abtigay Axmed Bulaale wuxuu tagay doodi iyo gurigu ku dhashay. wuxuu la tagay 4 wiil oo yaryar oo family-giisa ah. wuxuuna ku faanayaa inuu yahay dawlad. abtigay dawlad maaha waa wax bala qaadatay. wuxuu leeyahay abtigay halkan wixii ka dhacay waa loogi halkan wixii ka dhacay adaa dhigay. hooyada xudun bay u dhalatay. adiguna waxaad u dhalatay cadabuur. adaa shalay laha ka reer abtigay ila dila. wareertiga dilay. way godabti ku hayaan oo wiilkii aabihii isaaq dilay ee jaamac siyaad iyo kii ugaariyahan ee aabihii isaaq dilay adaa shalay waxaad ka dhigtay og halka iyo wixii ka dhacay adiga og cid kaaga waramaysaa ma jirto cid walbana way ku garanaysaa gurigaad ka dhalatay gurigaad u dhalatay inta isu jiraan iyo waxay yihiin waxaad ka dhigtayna waa la ogyahay adayna meel kuugu qoran tahay adaana hawsha dhigay adayna ku taala iyo waxa laaliya wixii kugu garab taagan adikaydii taala wad qorantiin سياد محمودنا وحاوا كيشيين اسكدا قدب هيدا مق ليس مرة عيا مق يا adiga se way ku qoran tahay taadi iyo waxa laale iyo waxa ku taageersan taadi waa ku qoran tahay waxaan ku sheegay Axmed Bulaalo hooyadii ka guure aayadii uma nagaado halka aad kaga guurayso dhul bahante aad garaadada canjarafaynayso oo haweenka canjarafaynayso oo dhalinyarada canjarafaynayso aad isaaq ku xambaarsan tahay yaad ugu nagaan isaaq waa kii iska daacid kale jaamac siyaad iska daa dhul bahante iska daa oo nool kale iska daa oo Axmed jaamacad ka dhalatay iska daa oo reer kulan iska daa reer bidha waa kii 20ka qoorweynka caaqilkiina ku jiro qoorta ka jaray ee aabaha koow ka ahaa adeerka cali xaashi wiilkiis iyagoo hurda golaha geela oo ku gowracay geelana dareersaday barta aad hadeer taagantay masaajidka laga dhisay barta lagu gowracay adeerka iyo wiilkiisa geelisana lagu dareersaday yaa hooyadii ka guure ayadii uma nagaado isaaq waxaad u soo sheegaysaa iska yar nin baahi ku korayna oo sabool ahina maalinta loo dhiibo $1 cirkiga dhulka la wareega $1 isaaq kuwadi maayo waa ninkii aabaha dilay ee walaalka dilay ee adeerka dilay war meeyay Cabdilaahi Cawil mee Bulaale Axmedkii ku dhalay meeya Xuseen Axmed barihi caaqilka ahaa meeya adeerka cali xaashi meeya curadkiisi meeya geelashoodii aawa reer bilowdan mee waray intaan cid kale u hiirin cid kale u aarin wariyaa waxaan ku leeyahay Axmed Bulaalo tan Maxamuud Garaad way kaaga dhamaatay isku dirimaysid dhulbaantana isku dirimaysid hartina isku dirimaysid maanta lahayd tallaaye kaale saxmeegaagii raaca xasan ugaas abaal biigu lahaaye adeer waxaan ku ogaanay inay ahayd taadu harti kala fogeyn adeer xasan ugaas nafahaynin ay ahayd inaad harti kala fogeynayso taana adeer ku hayaa ma jeerteen godabtii waa ku hayaa waxa taay Axmed Bulaale godabtaasna aday ku taalayo inta ku wadata iyo ina cambaasho iyo inta dabada ka riixaysa ayaan darase waxa ku aheede maanta ilmaha yar dhashay Cabdiwali Sugaal ee kula hadal ee kula halka mar ee kula haye maxaa tiri ee madaxa ku ruuxaya war ilmaha yar la socotaa ma ogtay maalintu dhashay ma garan maalintu dhashay ilmaha yar ee ku xukumaya maalintu dhashay ma garan ayaan darra ifka la kaaga kaxeeyay Cabdiwali maalintu dhashay ma garan ifka waxaad ka dhigtay waa lagu ogay aakhirana waxa ku jira Allah baa og ilaahay balaayo ku dhiga aakhiro ifkana balaa ku taala meel walba godab baa ku taala ma jeerteen godab buu ku hayaa bulbaantana godab buu ku hayaa meeshaad ku noolaanaysaa adaa og saaqna waa kii abayaasha gowracayay waxaan ku leeyahay Axmed Bulaalo way kula fogaatay oo way kula dheeraysaa laakiin insha Allah ta'ala cid ka soo afjaraysa waa jaamac siyaad cid kale ku dirmayso jaamac siyaadna waxaan leeyahay iska qabta oo toogta Axmed Bulaalo inta la socotay toogta oo iska celiyo iska dhiciya ninka tuuga magac xumo noo dilay iska qabta ninka waxaan leeyahay adaa qaxay oo cararay Axmed Bulaalo oo gulwadaha barqa laga caysay barqa booqan hadaa tahay heede maxaad u joog wada gulwadihii maxaad karayaashaad u haysan weyd maxaad la dhababacaynaysi yaa ku caydsaday ma jeerteen yaa joogtay ma daarood baa joogay meel dhulbaanta ku caydsanin haddana dhulbaanta ku caydsanaya oo ku dilaya oo maanta ma jeerteen iyo hartiba wata iyo daarood oo garab taagan naf iyo maal baadeer ku caydsanaya oo ku dilaya barta tagtana waa laga soo saaray haddana hareeraha lagaaga meersay waxba dhoodi qudhacdeeda isku sawireen hareeraha lagaaga meersan yahay nin abti waayay adeerna waayay demeel galay ma haysto wiilka waxa la yiri aabihi wuxuu u heeliyaa maalinta hooyadii meel fog ka guursado adeer aabaha markii horeba ku heelinin oo hooyadaaba waxa laga guursaday xudun iyo cadabuurna waa laba kaama isxiga meel aad u cararaysaa ma jirto iyagana waa ku adleeday shalay ana idin dilay wixii ka dhacay waa la og yahay dad dhul isku waxay dhul kala sheegtaa adaa ka dhigay wixii dhacay adaa yimi adaa jaamac siyaad u yimaado musanaabaya kaalay laayar reer abtiga yadaa laha shalay
axmed bulaale waa kuu qorantahay godobtaas adiga iyo inta ku garab taaganba waa idiin qorantahay halkan waxaan ku soo dhammaynayaa hadalka baarqabka qooqanow anigu ma qaxin laascaanood baan joogaa dawaarkaygii baan tulanayaa wakaa waa dawaarkaygii kan waa dawaarkaygii tan waa meheradaydii waad aragtaa wataa waa meheradaydii yaa wixii ilaahay iigu qoraana waa iigu imanayaan halkan aan joogo waxaana igu meersan 25,000 oo wiil oo dhulbahantaa iyo 30,000 oo wiil oo harti koombaaba igu meersanadeer tan wax dhibaato aan kaga walwalayaa ma jirto wixii alla qorayna alla qoray laakiin baarqabkiiow waa ta lagu caydhsadaye ma dhufaan baa tahay waa tii lagu caydhsanayay baarqab warisaaq meelaha ku gooya waa ka ab iyo isirba kuu laaya deegaankaagina qaata jaamac siyaadna waxaan u sheegayaa ina cambaashe xasuusta idinka maqana jaamac siyaado waxaan idiin sheegayaa ina cambaashe maalintuu bilada helay waxay ahayd maalintii diiriye cali xayd lagu dilay yeyle buqdharkayna uu u saxeexay habar jeclo ee ina kadiya gaadhigu la gadoomi jiray maalintaasaa la yidhi alla ilaahay ninkanu waa ninkii inoo soo gacan gelin lahaa deegaanka dhulbahantee maantaba haddii isaga inaan xilu dhiibin uu buqdharkayna noo saxeexay waryaa iska qabta jaamac siyaado raggan iska qabta raggan deegaankiinay ku cunayaan dhaqaalaha oo raggiinay ku cunayaan dhaqaalaha assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu